soo dhawaada saaxiibayaal kulanti ismaqal wanaagsan casharkeenan guda garanaa saaxiibayaal aan wada soconno syndrome protasis short sentences jumlada gaagaaban imaste eftekhismeni we are happy waa faraxsannahay waxay ka dhigantaa dad badan imaste waxay ka dhigantaa we oo annaga ah eftekhismeni waxa weeye waa happy oo farxad ah taagori ine boli libimeno the boy is very sad wiilku aad buu murugaysan yahay ereyga agori waa boy wax ka dhigantaa wiil sad waa libimeno waxa waa murugo feri waa boli wax aad u badan ama siyaada yati ise toso thimomenos why are you so angry maxaa saas ugu xanaaqsan tahay oo ka dhigan sababtee aad u xanaaqsan tahay saaxiibayaal ereyga why oo sabab ah waa yati af Greek thimomenosna waa angry waa xanaaq isena waa you oo ka dhigan adiga ereyada kale waa xiriiriyaal saa u fahma saaxiibayaal dose mu miya efkeria give me a chance fursad isii saaxiibayaal ereyga give oo ah isii waxay ka dhigan tahay Greek dose fursad oo chance ah waxay ka dhigan tahay efkeria muna waa mi oo ka dhigan aniga thase kaliso argotera I will call you later mar dambe baa ku soo wici doona macnaha markaan mar ahayn baan ku soo wici doona ka dhiganta kaleeso saaxiibayaal waxay ka dhigantaa call ah wacitaan argotera waa later waa mar dambe xarafka tha u jeedaan tha wax ka dhigan oo wax future ka imaanayo oo markaas aan dhicin laakiin si la rajeynayo inay dhacaan ama la sameyn doono kale Greek waxay u isticmaalaan tha oo meesha English ka isticmaala will marka saaxiibayaal si fiican waafi u fahanteen baa idin rajeynaya casharkeena maanta saaxiibayaal intaas uu ku egyahay waan waxa Yuusuf waxa idin leeyahay marna guusha ka rajo dhiganina subscribe iyo like inaan ugu saacidaan baa idin ka rajeynayaa waa mahadsantihiin salaamka idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh